dunidu maanta waxay u qaybsantahay waa gaalo iyo islaam gaalo waxay ka gaalowday ilaahiye abuurtay bay ka gaalowday iyadu markaa waxbay deen dhaqan gaar ah bay isticmaalaysaa waana waxyaabaha keenay bacalada ilaahay inay soo degto maxaa hadaba kala gudboon iyagu waa kuwa geeri ma ogolayo dhimasho ma ogola inagu se dad islaam baynu nahay dad dalalka islaamka ahi in dhimasho jirto waayo magaaladooyinkeena maalin walba waxa laga qaadaa magaalo walba inta soo meed baa laga qaadaa imka loo fiirin balay maxay wax uga difaaci weyn waxa weeye haday maanta iyaga geeridu kaga cabaadisay iyo waxa ilaahay u soo diray de inaga dadku waa dhiman inagu shaasaynu dhimanayna waana ogolay laakiin amaraan maqlay ka soo baxay guddigii hawsha loo xilsaaro la leeyahay masaajidada hal la xidho diintu waxay ka qabto aanu garanay laakiin war hadaan xidhnayn kuwii fusuqa lagu sameeyay guriga lagu sameeyay awood u lahayn aad xidho oo kuwii qaadka iyo xanta iyo beenta iyo balaayada la galiyay furan yihiin intii masaajidka ku jirtayna aad tiri ka soo yac kuwana aanad xidhi karin marka ma dadkii intii ilaahay ba inoogu dambi naxariisanayeen aad ka tiri soo xidha masaajidka soo kuwa furan maaha marka kaniisada isugu kaalaya dadku waxa weeye anigu waxaan oran